wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa si weyn u soo dhaweeyay warbixin ay soo saareen hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka iyagoo sheegay in Soomaaliya mudan tahay in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay kadib kulan ay yeesheen 12 ilaa 13 bishan. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in guusha deyn cafinta dalka iyo dib u habeynta dhaqaalaha ay ku timid dadaalo wada jir ah oo la sameeyay. Waxa uu sheegay wasiirku in ay wada hadallo badan ku qaadatay kamaradhalinta deyn cafinta shuruudaha ku xiran ay mid walba sal u ahayd habeynta dhaqaalaha dalka. 3 sano ee la soo dhaafay ayuu socday wada hadalka deynta cafinta Soomaaliya oo soo maray 4 waji, mid walba oo ay ku xirnaayeen shuruudo muhiimadeedu ay ahayd dib u habeynta hay'adaha dhaqaalaha dalka, ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Hay'adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka ayaa waxay guul taariikhi ay ku tilmaameen tallaabada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay in laga cafiyo dhammaan deymaha faraha badan ee caalamka ay ku leeyihiin. Soomaaliya ayaa waxaa lagu leeyahay lacag dhan 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dad badan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda caalamka ayaa sheegay in tallaabadani ay gaartay dowladda dhexe fursad u tahay in ay wax badan ku qaban karto waqtiga u harsan.